السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما شعبك الصومالي توس هو إنه في سنة يدا هذا برنامج لا سعودي كوة داودون إن شاء الله لما أنتي وين السلام المرة وادي مرسدات أو برنامج كنا أمان كيان إن شاء الله هذا ديك دونا نجوان كانوا ديرت صار دونو مقالة مقدشو أن كنت دعوة يا فرات تسع على سوق البيت دعوة أن هرودك ودع جرن مقالة مقدشة كدعوة وهاو إنه مرتيه وريها وين كارنتيه كلاي أو كنت قانان إنه يا قراءة وبسيط كاب دايني لو dadka ugu horeeyay idaacadda ka qayb qaata barnaamijyada ama la dhigi karo wargeysida ku soo baxa website-da ku soo baxa waa website-kii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka kiirgala marka la yiraahdo wararka Soomaaliya wararka website-du ay soo gudbiyaan waa website-kii ugu horeeyay ama dadka website-da ugu horeeyay ee dalka ka howlgala waxaan leenahay kalay waad maqashaa ku soo dhaw kalay oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si toos ah qadka noogu jira on ka waraysan barnaamijkan kalay ku soo dhawaaw Soomaali Wadan TV si toos halo kalay aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa saaxiibkay idaacadda aad u mahadsan kalay waa mahadsan tahay sida aad nooga aqbashay waqtigaada qaaliga oo waliba xilliga dambe ay Muqdisho tahay anagu ay hadda ay noo tahay 12 oo dhiman toban xagga ay u tahay waliba maartay 12 wax la jira waxaan rabnaa inaan bal ka wareysano bal xaaladda amni ee magaalada Muqdisho bal adigoo si toos ah nooga warramaya anagoo ogayn inay magaalada Muqdisho meelo badan ay xiran yihiin wadooyin badan xiran yihiin iyadoo arrimaha amniga la fiiriyay runaantii anagu aan soo dhaweynayno balse waxaan rabnaa bal inaad bal nooga tataabato adiga maadaama aad tahay hadda ruuxii ku sugan magaalada Muqdisho والله magaalada Muqdisho laba afartii bishii toddobaad qaraxi ka dhacay gobolka Banaadir xaruntiisa laga maamulo oo ku dhinteen dhowr qof oo ka gudoomiyaal degma iyo gudoomiyihii gobolka ku dhintay kadib waxaad moodaa magaalada xogaa amniga inay aad moodid in wax badan ay iska bedeleen sida la socoto magaaladan weligeed 25 sano ayay kala xirneed saad og tahay jufo kasto waxa waaye jid baa u xirnaa meel baa u xirnaa mana la qayli jirin dadku ma qayli jirin marka waxaad moodaa dadku inay dadka mucaaradka ay dadka rabaan inay ku kiciyaan ay micnaha abaab kicin ay ka dhigtaan laakiin sida cadka qofka waa la baaraya waa soo gelaya qofka mootada wato waa firiic baarta male marka arrimahan oo kala ah micnaha waxaad moodaa in dad badan ay dhibsanayaan dadka dhibsanayna ay yihiin dad nidaamka iyo habkay wax u socdaan aan rabin micnaa in hore looga sii socdo xaqiiqo horta kalay waxa xaqiiqa jid xiran iyo qofta nafteeda ayaa qiimo badan haddii qof muwaadin Soomaaliyeed uu dhimanayo waxaa ka fiican wadada ay xiraato oo dadku dhibtooda inta dadku dhiman lahaa waa runtaasi waana ajenda siyaasadeed oo laga sii fikiray balse waxaad moodaa sidii qarax u dhacay in dadka Soomaali aad qoshuuc weyn qalbigooda u soo gaaray ama dhaawac u soo gaaray waxaad isleedahay shabakadooyinkan dalka ka howlgala weliba caasimada ka howlgala ee qaraxyada diyaariya ee ka hortaga ee ismarkaas sameeya inay dadka aqoonyahanka ee dadka muhiimka inta badan beegsada ma isleedahay istaraatiijiyad hadda shaqeysa mid dhabar jibin karta oo hortagi karta waa tahay macnaha gooyo codka ma hagaajin kartaa hadaba maqasha si fiican hay waad si toos ay waa ku maqlay waa kugu celinaa su-aashan kugu celinaa waa ku maqlaa si fiican ku maqlaa su-aashan kugu celinaa kalay mii maqlaysaa kalay mii maqlaysaa kalay waxaan ku dhihi rabay macnaha maadaama qaraxi dhacay oo Muqdisho dadka weyn dadka qulubtooda oo aad uga guuxayo habka hadda amniga jiraay masleedahay shabakadahan magaalada ku dhuumaalaysta kuwa dhabar jibi kara ama siyaasad dhabar jibi karto amniga ayaa jirta masleeda oo dhanka oo hay'adaha amaanka howlgallada ay wadaan masleedahay wax weyn bay qaban karaan maanta waxaan arkaynay
waxa weyn la soo dhaweeyo waa markii horeyso 4 qofood oo dadka nabadiidka oo shabakadaha dhibaatada dadka u geystay in laga hortagay dhibaato ay geysan lahaayeen marka ma la dhihi karaa horumar fiican iyo amniga laga gaaray misdii kartaa والله هذه أن معناها ريالتي كان ولي واحد بدن أيام من أو معناها دانك معناها أمنيجو معناها وحبها هي قبرة أمنيجو وكسر شقيسي إن وياقات هاي أقول ولا واحد بدن كسر شقي بوليسكي قيبت أمنيجو برسنتد لقسو قد بي معناها وكاغو كحماي كسو هلاقايان لكن لو باهي هاي ها صح وصار هاي صح معناتها برسنتج قد كا لسنين برسنتج معي تري برسنتج معناها سيدي oo ha sanad basan ka dambe waxa moodaa in horumar dhanka amniga sameeyo laakiin wixii wali baraka ma qodno dalkan 30 sano ayuu wuxuu ku soo jiray rafaad iyo isdil iyo isbaabeen marka waxaana loo baahan yahay macnaha laamaha amniga in laga shaqo geliyo macnaha dad waxaan aqoon u leh oo expertiga way arag ah oo waxaan macnaha fahmi karo oo si wixii dhaca hataa wax looga qabto oo macnaha si fudud wax lagu helo laakiin waxaad moodaa 24tii wixii kale ilaa hadda inaan wax oo qarxiyo dibana hadda is dhicin arrinta maanta dhacdana sida ay sheegay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga in 4 nin 3 nin iyo gabar lagu dilay macnaha meel u dhaxaysa isgoyska hodan iyo holwadaag u dhaxaysa isgoyska bukaaraha meel u dhaxaysa degmada hodan iyo holwadaag lagu dilay 3 wiil iyo rabay in ay dil rabeen ka wasaaradda waxbarashada halkaan rasaas iswadaarsadeen ku dhinteen 3 wiil iyo gabar sheegay way caawinayaan marka arrintu saas ay u dhacday laakiin xaaladda hadda saad moodid haddii saan ku sii socoto waxa xal oo iska imaan doona laakiin waxaad moodaa nabaddu dadku inayna qaarna rabaan qaarna aysan halkii kalay sidaan taariikhda aanu nahay dawladii waddanka soo maro dhan hay'adaha ammaanku ay jireen madaxdooda kala duwanaato laakiin soo lama dhihi karo waa markii horeysay kuwa shabakadaha dadka madaxa ka jibiya waa markii horeysay oo 4 qofood ama 2 qofood ama 3 qofood waa markii horeysay gacanta lagu dhigo soo lama dhihi karo soo guur shacabka Soomaaliya u soo yeetay hay'adaha ammaanku ay gaareen soo lama dhihi karo waana la dhihi karaa lama dhihi karo sidaba 4 nin iyo 20 nin oo ka tirsan ciidan oo meel jooga 50 nin 4 nin se ula dirir karaan waa dareemi kartaa macnaha hadduu dagaal dhaco bistoolada wataan qorooyinkaan ugu wato laakiin waxaad moodaa ciidankii in xoogaa moral ay hadda helayaan mishaar qaadanayaan gunno helayaan wuxuuda si direct u qaadaan taa waxay keenaysaa dhiirigelinta ciidanka hore uu jirin booliiska waxa laga yaabaa inay dhowr bilood lacag qaadan militariga sidoo kale hadda waxaad moodaa xoogaa moral oo ah askari inuu xoogaa moral haayo dhaqaale uu ka helayo macnaha gunnadiisa oo helayo masaariiftii raashinkiisa wixii marka waa isbedelka waxa keenaya moralka ayaa moral keenayso oo dhiirigelinayso ciidanka qofka markaa mishaar siisid ama aad dhaqaalaysid waa amri kartaa amarkaadana wuu ku shaqaynaya isbedelada waxa keenaya macnaha waxyaalahaas ayaa keenaya in dawladda hadda jirto ee farmaajo iyo rasaar khayre aad moodid macnaha dhanka dhaqaalaha ama dhanka musuqmaasuqa boqolkiiba 25 iyo 30 inay xakameeyaan inta kale la sugaa inay dhameystiraan ugu dambeynta waxaan rabnaa bal inaad dhanka kale noo taabato wadooyinka waxaad moodaa weli inay aad xoogaa looga sheeganayo marka haddii sida macnaha bal qaabka shacabku iskugu dhex gudbo bal noo qaacitaan noogu sii qoftaan sida anigoo kale aan joogin aad u sharxaysaa tusaalaan bawran ka soo watay lambar 4 waxaan rabaa inaan soo gaaro sayidka oo kale soo gaaro ama waa beri oo kale soo gaaro maxamed jabo oo kale soo gaaro sidee marka amniga intaas sidee ku suurageli kartaa marka inaan soo maro bal taas bal iga dhadhacsiin bal ii sharax
horta sidaa la socoto jidadka xiran micnaha waa jidka wadnaha haddaad taqaana jidka ka imaanayo tarbuunka isgoyska banaa isgoyska diber tarbuunka maxaa la dhahaa isgoyska maxaa la dhahaa sheecali suufi kan bukaaraha dheer waa jidka xiran jidadka kale oo magaalada ku yaalla wax xiran ma jiro waa isku furan yihiin waa free waa jidadkaas oo jidka wadnaha waaye waxa xiran oo aan looga soo gudbi karin dhankan oo kale oo magaalada inta kale magaalada wadooyinka meel kasta way ka furan tahay marka okay aniga baaburan wataa kalay baaburan wataa aniga waxaan joogaa tusaalaan barwax waxaan rabaa inaan soo aado lambar 4 aan imaado hotel weliye oo kale ama aan imaado sayidka oo kale say ku suurgeli kartaa marka nin raydaan ahay hay xaqa u leeyahay ya nin raydaan aan kuri shaqaale dawlamiye yani baaburan wataa shaqaale dawlamiye firi baaburan wataa waxaan rabaa inaan ishraacdo baaburan wataa nin shaqaale dawlamiye yani waxaan ka soo tegay barwax waxaan u soo socdaa howlaag sayidkaan rabaa inaan imaado ama aan imaado maaragtay waa beri aan tago marka xaggee soo mari kara nabad kusoo macnaha sidee shaqaalna miye oo dawlad shaqaala u miye see marka xaggee soo maraa see suurgal ama waxaana nin tagsilaa way adahay isgoyskooludaaga lagu celinayaa tagsiilayaasha iyo dadka shaqaalaha ama tagsiilayaasha ama mootoolayaasha ama caasiyada dadkaa waa free horta waa jidka ma xirno waxa jidka ka xiraya waa baabuurta kale oo birbaatiga oo shakhsiyaadka ay ana shaqaale dawlamiye kalay shaqaale dawlamiye yani nin waxaan ahay muwaadin soomaalida baawur wataana baawurkaygana waxaa diyaar u ahaa in lay baaro suuragal ma tahay meeshaan raba inaan tago waa adag tahay taa way aaday waa adag tahay micnaha waa arrin aad iyo aad u adag marka meeshaas maxaa kuwa baalag gaaf ba ku jira meeshaas ilaa aniga muwaadin soomaalidan ahay xaqan u leeyahay inaan magaalada meeshaan raba aan maro haddana hay'adaha ammaanku waxay xaq u leeyihiin inay amnigana sugaan muwaadinka soomaalida aysan ay cadibin marka sidee la isu qabadsiin karaa wallahi waad dareemi kartaa meesha haddii waddada la furana dawlacayo waa ogtahay waa qaraxyadii iyo laga cabsanayo ayadoon la furin baabuurkan la hubiyo la baaro la xaqiijiyo maro suurgal ma noqon karta ma noqon karta kulley aniga intaan arkay kaar wato dawladeeda xataa waxaa laga yaabaa in lagugu adkeeyo oo lagu diid ka way adag tahay arrinta noocaas markaan reality ka hadlo aan micnaha marka aniga haddaan amni ka shaqaynayo fiir amni haddaan ka shaqaynayo oo aniga aan xuquuqdii muwaadinka aan dusiiyo soo amni darrada qayb ka mid noqonaya marka aniga lafteeda yaa kalay wallahi kulley waa sida ay dawladda go'aansatay kulley in laamaha amniga maya fiiri aniga amnigaan ka shaqaynaa inaan amni darro anoo amni ka shaqaynaya inaan noqdo ehel u noqdo inaan amni darro ka shaqeeyo oo shaqadii noqoto mid amni darro sooyda maaha in muwaadinka soomaalida ila shaqay lahaa oo aniga aan kala fogaano ma aha haddii aniga muwaadin kala fogaano waxyaaba aan heli lahaa ama aan heli lahaa wada shaqayntii aan ka heli lahaa shacabka waa kala fogaanaynaa marka kalay sidee ku suurageli karta waxaa la yidhi sidee xeer lagu xagtay ilkan ku nabad galaan shacabka asigoona iga xumaanay oo la shaqaynaya sidee suuragal ku tahay inaan haddana aniga asigana aan dantaa rabe ka gaaro aan amnigiisa xaqiijiyo asiga iska hubiyo inuu gacan ammaana yahay haddana uu holihiis u wada lahaa sababtoo ah waa qalad inaan aniga qalad ku soxo anoo qofka shaksi dambiilaa inaan dadka o dhan xukunkii asigaan ku qaadi laha ku qaada maaha saa la socota dio iskooloodaag baabuur waagi hogaamiye kooxeeda baabuur ku gudbi karo horta sayidka soo aadi jira ma jirin micnaha baabuur siina aadi karna ma jiro waxaa laga yaabaa mar inay baabuurtaba qof wada kara jiro la iska dhacay
marka dadkan wax badan waa la soo qabteen waa sabreen hadda micnaha arrintaa ayaa la soo jeediyey dadku horta way dhiban yihiin oo way ku dhiban yihiin dadkaas micnaha qofku in la baaro xaq wuxuu leeyahay si toos in la baaro markii la baarana qofku uu socdo micnaha dad u tababaran arrintaas meesha ma jiro cunugir oo askari oo qoro wata meesha waa kuxuma qadka kaga go'ay oo kusoo insha Allah halka dheerba inuu kula gaarinaaba laga yaabaa maya firi waxaa jirta waxa la istiraatiijiyada ammaanku waa inaad adigu mar walba aanan noqon amnigaada ka shaqeynaya amniga dhaawacda maaha amnigii maadaama aad ka shaqeynayso amni nin dhaawac inaad noqoto maaha amniga markaad dhaawacaysana markaad xuquuqda muwaadinka aad dudsiiso amniga waa dhaawacda adiga waxaadna kala fogaateen amnigii inaad wada shaqaysaan hay'adaha ammaanka iyo shacabku wada shaqeeyaan ayaa meeshaas ka baxaysa haddii meesha ka baxdana waxaa fursad helayaa dambiilihii iyo dhagarqabihi ayaa helaya marka waxaa la rabaa inaad dhagarqabihiina qabato ood ka garatay bulshada inteeda kale ka garato muwaadinkana xuquuqda u lahaa aadan dhaafsiin oo siduu rabay magaalada u adeegto tusaalaan kalaan ku siinaa waxaa jirtay siyaasadda amnigu mar walbana waa mid lagu sameeyo cusboonaysiin waa inay noqotaa mar walba dhagarqabaha ka sarraysa waxaan arkaynaa dhagarqabihi hadda waa naga sarreeya oo hadda hay'adaha ammaanku si u shaqeeyaan waxaan arkaynaa farsamooyinka adeegsanaya in dhagarqabuhu naga horumarsan yahay oo mar walba cashar cusub noo dhigaayo marka casharkaas cusub ayuu noo dhigaayo mataa dharbaxsho hay'adaha ammaanka ku dhacda ma tahay halkaan cashar u dhigi lahayn annaga wallahi khubro waxaan taqaano horta in la helo ma fahanti khubro oo dad waxaan aqoon dheer u leh ma jirto ama nin waxaan muddo waxaan ka soo shaqeeyo askari ama baaritaan soo noqdo dambaaris ka soo shaqeeyo ama saanaha meesha waa dad wada cusub oo wixii ku cusub oo dhalinyaro micnaha inta badan oo saraakiil ah asba micnaha baaritaankaas ay wax baarayaan ama ku yiraaho iga tag hay ugu soo leexan inuu ku dhaha micnaha kaga wanaagsan kalay waxaa jirta waa konahay kalay waxaa jirta nabadoon yaasiin asna noo soo galay nabadoon yaasiin bal noogu jir adiga insha allah nabadoon yaasiin meesha noogu jir insha allah qadka noogu jir asna nabadoon yaasiin wuxuu ka soo hadlaya magaalada muqdisho bal aan wada qaadaan dhigan oo nabadoon yaasiin aan u gudubno bal ra'yigiisa iyo taladu hayo nabadoon yaasiin way maqashaa malena nabadoon yaasiin ku salaamaya maxamuud adiga ummadda Soomaaliyeed maxamuud ma waa axmed didacado waa axmed waaye waxaa asna nabadoon yaasiin qadka waxaa noogu jira kalaay oo nugunahay qabiir xagga maaragtay wargeysyada ah isla markaasna wariye runtii ruucaddaa adiguna waxaa tahay muwaadin magaalada muqdisho jooga dhib ma adigoo si toos ku weydiina carqalad ma kala kulantaa waddooyinka xiran magaalada muqdisho yaasiin adiga ahaantaada waa adoon qof kale u warramin haa yaasiin may maqlaysaa yaasiin waxaan ku yidhi adiga carqalad weli ma kala kulantaan ku yidhi gaadiidka magaalada muqdisho dhexdeeda ka shaqeeya ama saad ku gaarid magaalada muqdisho meelaad u baahnayd waa ka xumahay nabadoon yaasiin taleefonka ayaa ka go'ay waa ka xumahay waa ku noqon doona insha allah umaa doona haddana mid kale meel kala soo baxay yaasiinow way maqashaa u malena marba meelu kaa soo waca mar iimaha waay marna facebook waay laakiin waan hadda ku celina insha allah halo halo waa ka xumahay kalaayo waa kugu soo adigaa mar labaad kugu soo noqday kalaayo marka su-aashaan yaasiin u wada ayaan ku weydiinaa
adiga ma kala kulantaan ku yiri carqalad ma kala kulantay magaalada inta adigu aad joogtay gaadiidka magaalada ka shaqeey adigoo meesha rabtay ciidamadu ka soo celiyeen mala kulantay yaasiin ugu jir yaasiin way maqashaa malena yaasiin ha hadda mi maqashmiya arrimahan kala hadhakaas kale rafad iyo dib aan ku soo marnaba yaasiin way maqashaa malena kala ku jir waa arkay magaalada muso hadda laftii kala ayaa qadka noogu jira oo wariye waxaan rabay nabadoon yaasiin nabadoon waxaan rabaa si toos inaan ku abaaro magaalada muqdisho intaad joogtay intaad adiga ku sugan tahay carqalad ma kala kulantaa meelaha dan kaleed inaad hay'adaha ammaanku ama ciidamada booliisku ay ku xanimaan oo suurgal noqon weyd inaad meesha rabto u gudubto yaasiin adigu waa nabadoon yaasiin marmarka qaar haye la kulmasaa haye marka maxaa markaas dareentaa markaas may maqlaysaa maxamed si fiican oo ku maqlaa maxaa dareentaa markaas markii aad meesha aragtay lagaa soo celiyey maxaa dareentaa wallahi waxaan dareemaa de kolley wax uu nabadgelyada la sugayo iyo oo baan dareemaa iyo macnihii xoogaa dee macnihii wax kastoo macnihi caqabad wuxunba lagu salaxayaa soomaa lagu daberayaa laakiin yaasiin xaqiiq waxaa adigoo meel muraad kala haddii lagu soo celiyo xafladaa laga yaaba inoo socotay waxaa laga yaabaa inaad maanta meel aad ka cusubneed haddii askarigii booliiska asigoon kula hadlin oo ku yidhaahdo kala jire oo ku yidhaahdo maxaad adiga ku geli lahaa aan ku dhihi lahaa markaas maxaa ku geli lahaa taas u baana waa taas kala jire ma ku qancaysaa meesha kolba haddii dee meeshii ama madax ay joogto ama shaqa ay ka socoto waan ka noqonayaa laakiinse meel aan waxba ka jirin waxaan leeyahay maxaa laygu haystaa baan leeyahay ma fahanti laakiin adiga xaq ma u leedahay muwaadin soomaaliyeed oo nabadgelyada lidda ku amatid xaq ma u leedahay inaad waddadaas marto xaq aad u leedahay sow adiga marka muraadka aad lahayd haddii lagaa hor istaago xaq baan u leeyahay laakiin hadda shaqa ka socoto ka waran okay adigu ma waan kartid kala wareegaa lagu yidhi laakiin maxsuul kuu soo bixi kara markaas askariga soona jawaab aadan ku qanciya aadan ka helin maxaad dareemi kartaa shucuurtaad dareemi karta muxuu yahay maxay tahay maxay tahay shucuurta aad dareemaysa markaas waxaad dareemaysaa horta cidhiidhi badan iyo culays badan hadda intaa rab intaasaa raba marka fiiri intaa u baahna intaas waay kalay ukaad igu jir kalay markii adigoo saaka igu jir nabaddo sug kalay saaka adigoo maanta muraad kale ayaa hay'adaha ammaanku baabuurkaada yidhaahdeen kala firay dib u noqo maxaad dareemi lahaydaan ku dhaha ama way dhacdaaba ama way kugu soo dhacdaba maxaad dareemaysaa mari way igu dhacay toban mare igu dhacday dee waxaan dareemayaa micnaha in aan xaquuqdii aan lahaa aan meesha ka helin waxaan dareemayaa micnaha culays badan oo micnaha aan lahaa inaan soo qabsan gurigayga cawada aan ku hooyo karin micnaha dhib badan ayaa kala kulmaysaa taa micnaha laakiin waxaad moodaa ayaguna micnaha laama amdaal ayay ka tahay oo waxa waaye iyaga xataa wal iyo cabsi ayaa waxay ka haysaa ilaa dadku lama kala yaqaano kii qarax sidii kaa qarax sidii bixi taqaano male marka taa ayaga xataa culays badan ayaa dhankaas ka saaray laakiin nabad fiiri kalay halkaas jooji meeshaas waxaa laga rabaa shaqa laga rabaa meesha shaqaa ku jirta iyu kaadi nabaddo yaasiin ku noqonaa nabaddo yaasiin meeshaas shaqa ma ku jirtaa ma la dhihi karaa yaasiinoo saakay dantii u lahaa waa inuu fushadaa nabadgelyana ku tagaa meeshuu rabay dhagarqabahana waa in la qabtaa shaqadaas ninka qaba lahaa ayaa meesha ka maqan ma la dhihi karaa horta waxaa la rabaa igu celi aan si fiican yaasiin ma la dhihi karaa shaqadii la rabay meeshaas kama soo bixin yaasiin muraadka uu lahaa inuu waddadaas xaq u maro ayuu leeyahay nabadna uu ku tago halka uu rabay dhagarqabahana la qabto ayuu xaq u leeyahay in la qabto oo laga qabto yaasiin waa nin nadiifa waa nin muwaadina waa nin aan nabadgelyada dhib ku ahayn
waa nin marka saakan u soo baxay muraadkii u lahaa waa in loo fuudeeyo waddada inuu maraa dhagarqabaha dhibka wadana waa in la qabtaa meeshaas waxaa ka baqan soo lama dhigi karo marka hawsha saas ahay askarigii loo egmaday ma gudane waxa uu sameeyey adiga iyo dhagarqabihii isku hab isku system ayuu ku wada dhaqmay labadiina wuxuu noqday inaan idin yidhaahdo noqda marka adigu maxaad ugu duwanta dhagarqabaha marka haddii adiga waddadii lagaa xiray su-aasha igaga jawaab waxaan uga duwanahay mataqaanaa naftaydii baa la rabaa in la badbaadiyo may waa u taagan yahay asiga shaqadiisa waxay tahay inuu adiga ku badbaadiyo adiga inuu ku badbaadiyo u taagan yahay waddada laakiin adiga inuu ku dhibaateeyo ku carqaladeeyo shaqadaada hor istaago xorriyaddaada hor istaago askariga wax uma laha aniga askarigan ahaa booliiskan ahaa waa soo shaqeeyey waxaa leegu tababaray inaan sharaftaada sumcaddaada maalkaada naftaada intaba aanu ilaaliyo haddii marka aan adiga karaamadaada iyo sharaftaada iyo maalkaada naftaada aanan haddii aan cadowgii adiga kilmid ka dhigaan ku dhahay labadiinaba dibiga ka noqda ma waxaan shaqadaydan guto mase shaqadayda ma gudan horta waa kugu adkaad okaade kalaa gudba okaade kalaa gudba kalaa gudba kalaa maadaama askarigu uu yahay inuu muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa cisigiisa ilaaliya laga rabo haddii uu adiga naftaadan ilaali waayo maalkaadan ilaali waayo cisadaadan ilaali waayo karaamadaadan ilaali waayo shaqadii uu lahay ma ka soo baxay mase kama soo bixin mar haddii adiga iyo ninka shabaabkaa labadiina waddada kala wareeg uu idin yiri maxaa ku kala duwanta adiga ninka shabaabkaa marka والله adiga nabadon yaasiin inuu codka xoogaan naga xiro ficnaaleed nabadon yaasiin waa ku maqlayaa ganjeelada inaad ka fogato ficnaaleed igu celi kalaay maxay tiri igu celi kalaay taas adiga iyo shabaab what's different aad kula duwanta ma sheegi kartaa labadiina kala wareegaa laydin yiri ما مغلطة كلاي قد كاكو أتكاوي إيه سعدي نبض ياسين إيه كلامك أيه كجوادي ورد ما مغلي ها نبض ياسين وكم مغلا سيفيا مقصة ها قل سيقل أيه ورد وحويا إن وأنتي سمع إن جدقوي ده ها جدقوي ده horta mad waxa weeyaan in ammaanka la sugo oo cidii la doonayo la baaro oo laga soo dhex qabto macnihii qofka dadka haligaya midna waxa weeyaan muraadkii aad lahayd waad ka habsaantay oo adiga iyo ninkii isku kimid baa la iska dhiga ma fahantay exactly ani midaan ka duulaa taas haye ma fahantay sax go ahead laakiinse waxay ku daran tahay wixiiba haddii aan lagaa garanay ninkiiba kii la doonayey ma yeelay firi makaa yeelay yaasiin ma la kala garanayo makaa yeelay firi ma la kala garanayo makaa yeelay waa la kala garanaa ani taas firi ninka aan shaqada aanan aqoonin ayaa marmarsiya ka dhigta lama kala garan karo ma dhici karto dhagar qabe iyo nimaan dhagar qabin waa la kala garan karaa sifa lagu kala garan karo badanaa jirta marka taas qof raba inuu duraal u nin duraal u yeelan rabo waay laakiin waxaan ku yiri wareedhe horta caawo guul baa inoo waa taan ku sheegaa waa taan ka hadlayna lafteeda mawduucan ka hadlayna waa laakiin caawo guul dowladii jiro dhan ay sooyin ha caawo guul baa inoo soo yeetay kowdhe ha علي دير وابختي اني مو دمنا وبختي ما فهمت واقر علي دير وبختي كوده هاي وركس من نوي ساعه ورفع واي هذا وركس عاون ما حقيقي كرت وركاس waa diyaar warkaas waxaan ku warbaahinta waa la xaqiijiyay warkaas waa dhintay askar badanna waa 18 sarkaal waa la dilay isagiina waxa xaqiijiyay kuwa la qabtay ayaa yiri habeen hore u dhintay bay dhaheen
ما dagaalkii dhacay hadda aad kaas ka hadlaysaa marka ها dagaalkii habeenku dhaweyso ayuu dhaawicii buu la dhintay haddeerto waa la xaqiijinayaa xaqiiqo badan baa la hayaa saraakiil badan baa sheegtay sarkaal ciidanka niise ka tirsan baa sheegay xog badana laga hayaa ma fahanti wararkaas kolle war fiican oo ugu fiican oo sheegi leed ma jiro warow geeri cidoo haataba gaal iyo muslim aan lagu farxin waxay iska fiicneed dadka Soomaaliyeed nin dambeeyay ayuu ahaa balse qof walba oo damiir leh waxay leedahay kaas ummadda inuu ilaahay dhaafiyo qof walba ku farxi lahayd oo jeclaa lahayd inuu ilaahay dhaafiyo ninkaas dhiigga shacabka Soomaaliyeed banaystay kumanaan kun oo qof ciidda koos mariyay hooyooyin badan intaasoo kuma hooyo ay maarta agoonteeyay horta waa run wax loo baahan yahay oo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ka hartay oo noqon doona hadduu dadka shacabka Soomaaliyeed dhaafo kalay min maqashaadi kalay igu jir Yaasiin kalay waa ku maqlaa kalay sheega nabadoon Yaasiin ugu jir kalay rabayna kalay min maqashaa kalay waa qadka ka cuslaaday kalay qadka ka cuslaaday Yaasiin markii ku soo soco saaxiib ma ku socdaa ku soco saaxiib adile waxa gaal Yaasiin عاوز مقدشة كول قد كده علص وأقومها مقدشة عاوز قد كده علص يا سي هذه قوي آخر يا علص ها يو نيكاس كاسوا كداي إلى حالة بريا إن عني وقالت بدنا سو ديوي qoryahoodi way tuubiyeen faanti alla ciise wax ka fiican sheegaleed ma jiraan ugu dambeyn gabagabada Yaasiin lama la dhigi karaa hay'adaha ammaanka siyaasadda amniga ee hadda lagu shaqeeyay wax in wax laga bedelo oo runtii dib habeen lagu sameeyo ayuu u baahan tahay istiraatiijiyad amniga ma la dhigi karaa عملنا قد كنا نقعد سلادي برنامج كني ها ciidanku sidiisaba ciidanku horta sidiisa moraal iyo xog ayuu ku shaqeeyaa ma fahad صح ومالك xog masiina Soomaaliyeed ee shacabka moraalka xagga macnihii qalabkii fiicnaa iyo mushaarkii fiicnaa ma helayaan marka taasaani oo keenaysa in macnihii wax kastoo la keeno si kastoo loo darano xilli ka fiican ba marka afarta qof la tooganaya 3 nin iyo naag waa talaabo hor loo qaadaa lii kara waa talaabo hor loo qaaday aad iyo aad kaaga madcelinaa qadkaada kugu culus waana kaaga madcelinaa nabadoon Yaasiin aad kaaga madcelinaa maanta ka daba xogta waa la helayaa marka maanta sidoo kale saaxiib aad kaaga madcelinaa waana kaaga madcelinaa si sharafta leh waliba barnaamijyada wacyigelinta barnaamijyada bulshada iyo amniga nabadda inaad qayb ka qaadato aad kaaga madcelinaa Allah ku cisiyo waana maasanta saaxiib sida arkeen hadda xog na soo gaartay hadda waxaan maqlaynay in Yaasiin uu noo sheegay in dhagar qaba Caldheere uu hawada ka baxay waa wax fiican oo wax shacabka Soomaaliyeed u soo hoyday nin dhagar Soomaali ku waday dhibaato ku ahaa kumanaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaramsaday kumanaan hooyooyin Soomaaliyeed agoon ka dhigay carruurtooda gablan ka dhigay kumanaan marwooyin Soomaaliyeed aabayaashood maartay qaramsaday ilaahay waxaan ka baryaynaa in warkaas ilaahay rumeeyo ummadana kaas wuxuu ku noqday shida ayuu ku noqday in ilaahay ummadda ka reebo barnaamijkeena wacyigelinta ammaanka aan caawa kaga hadlaynay barnaamijkeena ammaanka nabadda aan kaga hadlaynay runtii aan fidiirad saarnin horumarka iyo tallaabada fiican ee ciidamada ammaanku maanta ay sameyn ka hortageen isku dayga dilka qaarijinta ahaa oo uu ninka agaasimaha ka gobolka Banaadir lagu dil rabay agaasimo ka ahaa wasaarad kamid ma xasuusto laakiin ay wasaaradaha kamid lagu dil rabay laakiin ilaahay tiisa uusan ka dhigin
iyo dadaalka hay'adaha ammaanku iyo guusha ay ka gaareen inay dhaqso ka hortagaan isla markaas waxaan leenahay hambalyaan leen weliba ciidamadaas waxaan dhihi lahaa waxay mudan yihiin abaalmarin ayay mudan yihiin haddii aan nahay bahda Soomaali Wadani TV haddii aan helo afartaas dadka ka dambeeyey ama saraakiishii iyo saraakiil xigeenta ama alfleedii dableedii gacan ku leed waxaan jeclahay inaan anigu abaalmarinta xataa qayb ka noqdo oo aan abaalmarin dhiibo insha allah maxaa waxa uu badbaadiyey muwaadin Soomaaliyeed ka uu badbaadiyey anigu isku halbaanay haddaba maxaa sooma mudna askariga shaqadiisii gutay in abaalmarin la siiyo waxaan rajeynayaa in saraakiisha ciidanka iyo madaxweynaha ra'iisul wasaare intuba ay abaalmarin siiyaan maxaa way muteysteen in la murayo si moraalkooda niyadooda loo dhiso shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay kaalin ka qaataan sida ay dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka ee hawsha howlkarinta ee ninkaas sarkaalka badbaadiyey ama agaasimahaas badbaadiyey in loo sameeyo baraarujin dhiirigelin farxad gelin maxaa waxay badbaadiyeen dhiig shacab Soomaaliyeed aabba carruurtiisii maanta agoon dhaqo lahaayeen ama hooyo weylaheed maarata odaygeedii weylaheed qoys maanta kala haadi lahaa ama firdad ku dhici lahaa walaac geli lahaa murug iyo oled ayaa meesha ka baxday waxaan leenahay marka inaan annaga u mahad celino dadka saas oo kalaa oo weliba hawsha dheeraadka ka hortag dembi dhici raba ayuu ahaa marka waa inaan annaga aan dhiirigelinaan ku faanaa aan idhaahdaa guusha ilaahay helnad garab galo halkiina ka sii wada ciidankaasna ay noqdaan inay ku dhiiradaan in dhagar qabayaasha saasoo kale ay maleegaya dhagarta shacabka Soomaaliyeed ee indhaha dadka Soomaaliyeed tiraya in shacabka Soomaaliyeed laga hortago isla markaasna la qabto oo la iska soo waxaan rajeynayaa insha Allah barnaamijkeena caawa on kaga hadlayna runtii inaanu caawa aanu saarno insha Allah runtii ammaanka iyo nabadda oon aalaaba kusoo qaadi jirnay sida wacyigelinta ahayd waxaan leeyahay halkiina ka sii wada shacabka Soomaaliyeed la shaqeeya hay'adaha ammaanka soo wargeliyey in dhagar qabayaashan ay gabadhu ku jirto ay rabaan inay sarkaal Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed u shaqeynaya inay qaarajiyaan kuwii ka soo shaqeeyey kuwii wacyigeliyey kuwii wararka soo dhiibay kuwii hay'adaha ammaanka garabka soo siiyey intaba waxay mudan yihiin abaalmarin ay mudan yihiin maada ka gaartaan ku leeyahay waxaad badbaadisay walaalka waxaad badbaadisay aabbaha waxaad badbaadisay adeerka waxaad badbaadisay wiilkaada waxaan leeyahay halkiina ka sii wada waa guul waana wax la rabo in dadku buunbuuniyo laga hadlo la qiimeeyo kor loo qaado ciidankaas iyo dadkii la shaqeeyay waa in la abaalmarin maalin cad la siiyaa aad loo buunbuuniyaa baraha bulshada la buunbuuniyaa dadku ay u duceeyaan karaamo siiyaan sharafaan halka aan ku mashquul lahayn gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed dadkan aan cay lahayn ama aan samayn lahayn wax bulshada kala geenaya aan amaano ama siyaasadda ka fashilantay ee marwaba madaxda ku dhegan dawladda ku dhegan horumar ku dhegan halka aan asaga ku mashquuleen wararkiisa aan comment ka bixin waxa fiican inaanu wiilashaas muwaadiniinta kaadiriinta dalkooda iyagu u shaqeynaya badbaadiyey sarkaalka isla markaasina dhagar qabayaasha dadka dhiigooda baneysay gacan ku dhigliyaasha ka hortaga dembiga geli lahay dambiyeedka ay samayn lahayn waxaan leeyahay bal ay gaarto haddii aan nahay bahda Soomaali Wadani isku dubrada barnaamijyada iyo agaasimaha barnaamijyada Soomaali Wadani TV waxaan leeyahay abaalmarin ay mudan yihiin waxaan jecelnahay inaan helno runtii Mr. Tuulax ayaan waxaan ka rajeynaa inuu noo soo diro ama aan helno magacyada saraakiil dadkii ka dambeeyay ama si dadbanba waxaan jecelnahay inaan qayb ka qaadano annagoo ku dhiirigelinayna ku amaanayna isla markaasina tusayna inay u shaqeeyeen shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dadka abaalkooda ay galeen waxaa tahay aniga ninkii badbaadiyey waxaa tahay adiga kii ku badbaadiyey haddii caawa maanta ay ku guulaysan lahaayeen inay sarkaalkaas agaasimahaas ay dil lahaayeen caawa xanuun baan la jiifi lahayn hooyadii dhashay xanuun bay la jiifi lahayn carruurtii sugaysa aabbaha u lahaa xanuun bay la jiifi lahayn ehelkiisa xanuun bay la jiifi lahaayeen hay'adaha kale ee agaasimayaasha kale dawladdu ama shaqaalaha dawladda xanuun bay la jiifi lahayn Soomaaliga wadaniga sida anigoo kale oo Soomaalinimada iyo wadanimada dalka iyo dadka jecel xanuun buu la jiifi lahaa taas markii yaa yiri been yiri yaa riyadii ay dabacsanaayeen dadka gumays u kalkaalka maxaa waa ninka shabaabka waa dalka diinta dadku diiday maaha jacayl iimahayo dalka ma jecla dadka ma jecla dadkana ma jecla marka aniga mabda asaga aan ku dilo xitaa waa cadow Soomaali loo soo diray marka waxaan dhihi lahaa maanta wiilashaas ka hortagay falkaas faldambiyeedkaas dhici lahaa ee maanta lagu dil lahaa alxamdulillaah ma haddaas kale asigana cimrigiisa la raajiyo annagana waxaan leeyahay dhalinyaradaas ciidamada ee ka hortaga falkaas waxshnimada ee hornimada dadkii ka hortaga waxaan leeyahay dalacsiin ay leeyihiin abaalmarin ay leeyihiin waxay leeyihiin mid maadiyan mid macnawiya
mid physical inta waa ay leeyihin waxaan leeyahay maanta ka gaarto saraakiishaas dablida alfleyda dablida waxay ahaadaan intaba ay ahaadaan waxaan kaloo mahad u celinayaa dhammaan dadkii maanta isla markiiba maanta waxaa gaaray gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir arrimaha ammaanka Mr. Tuulax oo hambaleeyana inuu si gaar ugu hambaleeyeen waa rajayn doona insha Allah waxaan leeyahay halkiina ka sii wada hawsha aad u weysan qaranka Soomaaliyeed waxaad ogaanaysaa adigu waxaa tahay ilaaliyaha sharciga waxaa tahay ninkii badbaadiyaha shacabka ninka askariga ay qoriga aad wado waxaad ku ilaalinaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaadna iska ilaalinaysaa qoriga laftiisa inaad iska ilaaliso ka ilaaliso bulshada ku ilaaliso bulshada wal raab haddaba waxaan leeyahay halkiina ka sii wada hawsha aad shacabka Soomaaliyeed u weysiin ogow qoraxda iyo dabeesha iyo waxay kugu dhacaysaa inaad dalka u shaqeyso shaqada ugu fiican waxay tahay dadka noloshooda markaad waardiinayso waxaan leeyahay Allah idin ciseeyo waxaan leeyahay halkiina ka sii wada waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii hawsha Soomaalinimada leh oo aad runtii waajibaadkeena guuteen haddii waajibka aad guutay in anagana kugu amalmarno kugu faano kugu ixtiraano kugu dalacsiino ayaan leenahay laakiin haddana ma aha inaan nagu maarata shacabka Soomaaliyeed haddii aan gacmaha saarno ama aan fiirsano haddaad dhaawacantana aan fiirsano haddii aad guul keentana aan fiirsano waa inaan labadaba haddaad qalad gashana qaladkaada sheego haddaad sax gashana abaalmarinteeda lagu siiyo lagu yidhaahdo waad maasan tahay waad muteysatay waana abaalmarintan ay leedahay waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad ciidankaas booliiska ay maanta hawshaas sameeyeen aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa haddii aan aabahda Soomaali wadani TV waa anigu Axmed idaacadaha mar walba ilaahay mar saddexaad mar saad guushu adinka ay la jirtaa shacabka Soomaaliyeed la jirtaa ciidanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay halkiina ka soo wada hawshiina waxa barnaamijkeena martino waa kalaay iyo nabadoonyaasiin labada qodob insha Allah qadkooda oo ku culus laakiin waxay mal qaadaan ina mar kale ayagana insha Allah habeena kale aan barnaamijkeena insha Allah ka qayb qaadan doonaan ammaanka ayagoo wali si toos ah Muqdisho waxaad dareemaysaa maanta in dalku amnigiisu wax iska bedelo waxaad ka fahmaysaa dadka Muqdisho jooga inta badan arrimaha ammaanka uma hadda jirin ama inta badan markaad ka hadasho arrimahaas way ka gaabsi jireen waxaad arkaysaa dadku inay soo tooseen qalbigoodu noolaaday isla markaas inay ogaadeen waari meysida oo ka haro weertaas waa weer in hadda la adeegsado aad loogu baahaya waari meysida wara ka haro war dalka adaa iskale isdifaaca naftaaduna waajibada ka saar adiga intaanan nacabku ku dilin adigu iska celi oo sheeg oo halkii ku sugan yahay hay'adaha ammaanka wargeli oo adiga ha u ogolaanin inuu gurigaada ku noolaado inuu daris kula noqdo inaad barato ha u ogolaanin hay'adaha ammaanka wargeli si uu adiga ku dilin asiga hortiis dil waxaan leeyahay nabaddu waa horumarka bulshada waa dawladnimadu waa nabad haddaan la helina dawladnimo iyo horumar midna la gaarimaan xuquuq kastoo leedahayna gaarimays ilaa nabadgelyo aad qayb ka noqoto aad garab siiso hay'adaha ammaanka adigana kaalinta lagaaga badnaan aad ka qayb qaadato mar labaad mar saddexaad martida caawa waa ka mahad celinaa Mr. Yaasiin iyo Mr. Kalaay oo labaduba caawa marti noo ahaayeen ugu mahad celinaa sida qayb ay u qaateen barnaamijkeena waana waa idaacadaha isla markaasina ahaan wacyigelinta bulshada arrimaha ammaanka iyo nabadda iyo horumarka waxaan leeyahay waana Axmed indhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa barnaamijkeena dambo oo insha Allah iskugu imaan doono waxaan wax lagu farxo qof walba oo Soomaaliya markii kaalintaan oo kala caaw oo waxaan falka maanta dhaco markuu dhaco in dadku ay sameeyaan reaction fiican war damiirka habarto waxa wanaagsan inaan buubuuno waxaan baranay waxa xun inaan buubuuno war inaan barano upside down oo shaqeeyna ma inaan madaxmad oo shaqeeyna ma war waxa fiican ayaa lagu faana waxaan arkeen inaan wax dhax xun kaliya aan ku dhagana war umadu waa inay ka baxdaa kana hormartaan in waxa xun qabyaalada qurunka ninjeclaysiga waxaasoo kale inaan ka hormarno oon hor u socono yiraahdo taas waa laga soo tagay war qabiil waa soo dhameynay wax noo dhigana laha waa waqtiga aan wadan dhisalayn waa waqtiga hor u soconayn waa waqtiga aan ka gudbilayn wixii la soo tagay oo dhan aan ka gudbilayn dalkan maanta waxa hoggaan u ah dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaasina jecel inay ka samata bixiyaan wixii hore oo dhan aan ka ilowno horena loo socdo waxaan hay'adaha ammaanka ciidamadu waxaan arkaynay military si loo dhisay loo qalbiyay waxaan arkaynay dhaqdhaqaaq ay sameeyeen meelihii ay shabaab wargood aan la tageen ayay ugu tageen guryihii ay deganaayeen xaafaday deganaayeen aan loogu dul tagay waxaa loogu tagay tuulooyinka wabiga jiinkiisa ku yili waxaa loogu tagay qar iyo dhul hoos meel walba ku jiraan aan loogu daba tagay ciidamada daran ay ugu daba tageen yaa mahabeeyey yaa nooleeyey dowladda federaalka nooleysay maanta ka gaarto maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo xasan cali khayr hay'adaha ammaanka lokaalka amnigana siyaasadda amnigu walow wax ka dhiman yihiin haddana kaalin fiican iyo horumar fiican ayaa laga talaabsaday laakiin waxaa la arkaa in shacabka Soomaaliya oo inay la shaqeyn dhaba keenaan sida hadda ay wadaana halkaas ay ka sii wadaan
oo dhagar qabayaasha war lagaa qabtee soo sheeg hal lagaa qabtee soo sheeg hal lagaa qabtee soo sheeg yuusan ku dilin intuusan ku dilin dil intuusan adiga ku qaarijin qabo sheeg hay'adaha ammaanka wargeli taas dii la helo waxaa waaye gacmo wada jir bay wax ku gooyaan soo sheeg ha la qabtee soo sheeg ha la qabtee soo sheeg ha la qabtee ha laga hortago dembigeeda soo sheeg askarigu albaabkaa taaga waxaa mooga gurigaada waxa ka dhacay adigaa og qolka waxa diga adigaa og saa tiin adigaa og qoyska intuu ku koobay adigaa og ka shabaabka adigaa og ka shabaabka haajir adigaa og ka weli tukul adigaa og kan shidada adigaa og soo sheeg albaabkaa u taagan yahay wargela hay'adaha ammaanka oo waxaad tidhahdaa ninkii dhagar qabaahay oo dhibaatada abeed ahaa waa ka gurigeyga ku noolyahay war taas markaad tidhahdo adigna waa ka badbaadaysaa asagoo badbaadinaysaa wiilka laftiisu oo soomaaliyada sharwadaha inuu naga dhinto ma rabno waxaan u baahannaha asiilkiis inaan dhaqacili ku sameyno oo bulshada ku soo noqdo asagoo bulshada wax tiri kara laakiin waxaad ogaanaysaa wiilashaan waa wiilal loox cad wixii wax ku qorta waxa lagu qoro loox cad looxan warqadan caawa waxaan ku qoro unbaa ku oolaaya fiir warqadan haddaan waxaan ku qoro aa ku oolaaya warqadan waxaan ku qoro aa ku oolaaya meeshaan warqadan waxaan ku qoro dhalinyarada soomaaliyeed waxaa lagu shubtay nacabka waxay ku shubeen wax aanan jirin riya beenay ku shubeen waxay yidhahan dadkaada cadowa dadkaada nacaba dadkaada dil wiilkan waa la qalday xaquuqda uu lahaa wuxuu lahaa in asiga wadilid lagu shubo daljecel lagu shubo dowladnimo lagu shubo wixii sistemka dowladnimo waddanka aanan ka jirin ayay fursadda soo heleen fursadda markay heleen ayay dadkii kusoo jeediyeen dadkii markay kusoo jeedeen qofta koowaad uu kanun dili doonyo noqonaa adiga walaalkiisa hooyadiis aabihiis adeerkiisu noqonaa marka ayaana ka hortag inaan wiilashaasna la lumiyana aan anagu khadka kasii ridin haddaa adigu og tahay inuu shaabiha oodan soo sheegin ogow adiga ayuu biri ku dili doonaa ogow asigana waa sii dhaawacday waa sii dishay waa sii dhammaystirtay war walaalka u hiili oo hadduu qadeen u hiili oo hadduu gardareen u hiili oo haddii la gardareen u hiili marka lagu leeyahay waxaa waajibaada walaalka inaad qabato ood u sheegto oo tira haddii adigu aad isleedaad asigii sharwadaha shartiisa kugula soo noqonaa waa kugula soo noqona waaba loogyahay haddaad adiga aamusteen macnaheedu waxay tahay inaad si hoose hay'adaha ammaanka kula xirto oo tirahdo walaalkay ayaa u baahan in la caawiyo walaalkay ayaa ah kuwa sharwadayaasha walaalkaa biri asigoo isbedelay nuuc kala soo baxa ayuu imaan doonaa bulshada wax tiri kara dalka iyo diinta wax tiri kara haddaba caawa barnaamijkeena waxay gelin tahay iyo ammaanio aalaab ku soo qaadano barnaamijka nabadda iyo horumarka iyo shacabka soomaaliya sidii aan wacyigelintooda u kordhileen caawa halkaas aan kusoo gabgeyna waa anigoo axmed laakiin waxaa aan 2 iyo 3 aan fiirsho insha allah commentigeena idinko mahadsan qof waliba wax walba ay geystay ay leedahay laakiin ogow dalka ada iskale nacab inaad mar walba siisana ma aha inaad adigu quusato ma aha haddaad quusato guusha waa kaa tegi doontaa waxaadna dhaxali doontaa in adiguna kuwa waddada xun mara aad noqoto maxaa waay marka aad ka aamusto ood adiga aad u hoylin nabadda aad adigu ka aamusto maxaa kaa gala tiraado maxaa kaaga shuqul aad tiraado ogow adiga iyo nafta aakhirkana aadan ka nabadgelaynin oo taas aadan nabad helin ku talagal maxaa waay waxaad qarsanaysaa miino faraqa kugu jirta marka insha allah bal aan raali ahaada waxaan fiirinaa bal fadur raali ahaada waxaan rajeynayaa insha allah inaan bal commentigiina fiirsho walow hadaayo usan ii daareen baalkan hadduu ii daarana ay wax badan aan heli lahaa commentiga la qoray uu dhaafay haddana waxaan isku dayaa bal inaan wax dhowr qodob aan fiirsho insha allah cali wuxuu leeyahay nabaddu waxay u baahan tahay in labada dhinac ay ka timaado waa sax saas sheegaysa waay hore sama ku sheeg waay waa in shacabka iyo bulshada labadaba ka timaado laakiin mar walba waa inay ahaataa ta bulshada lafteeda kasbashadeedu waxaa looga baahay inay hay'adaha ammaanka ay ka timaado oo siyaasadda hay'adaha ammaanka ayaa waxaa laga rabaa in ayadu laftooda ay la timaado sidii bulshada looga dhadhici lahaa inuu iyada ay la shaqeeyaan taas daadnan aadu la imaanin macnaheedu waxa ay tahay weligaa gaari maysa waxaa kuu sheegaa badda kalluunka waxaa ka keena 3 shay baa ka keenta haddii badda kalluun lagaga diro 3 shay ayaa ka keenta waxaa ka keenta shabaqi ama instrumentigii macnaa qalabki instrumenti ma dhihi karaa qalabki iyo aqoonti iyo shakhsiga 3 waa in israacaan aqoonti haddii aysan jirin laakiin qalabku jiro shakhsiganu jiro lagama keeni karo haddii aqoonti maqanta aqoonti la haysto shakhsiganu joogo qalabkii inuusan jirin lama heli karo marka waa in la isku helaa qalabkii oo lagu shaqeynaya shabaqii ama maqaalintii waa in la helaa
shakhsigiina waa in la helaa aqoontiina waa inuu leeyahay saddexdaas marka aad isku hesho baddii waxaa hubantay inaad ka keeni karto kalluunka marka haddii la rabo amni in la sugo waxaa la rabaa in saddexdaas la helo waa inuu jira askarigii siyaasaddii iyo shacabku la shaqeynaya saddexdaas waa in la helaa siyaasaddu hadday tahay siyaasad aanan qeexitaan dhaba ku samayn karin ama aan definition fiican lahayn qeexitaan fiican lahayn ama istaraatiijiyad aanan hooseysa ay tahay dembiguna falkaas dembiyeedkana ay ka hooseyso oo ayaan darro waay ma guulaysataa la yidhahdaa ma guulaysato waxyaabaha haddana soo maray kamid taho shalay hoteelkii la qarxiyey maanta haddana la qarxina waddada shalay qarxi soo mara haddana uu soo maraa waxaa taas marka sababteeda ah in adiga shabakadda kuus aad samaysatay ee difaaca ahayd ay tahay meel gaaf weyn oo ku jiro oo ay haysato ama siyaasadda ammaanka meesha ka maqanta marka dhaawaca ugu weyn waxay tahay siyaasadda ammaanka meesha ka maqan iyo wada shaqaynta bulshada oo ka maqan shay keliya haysana waxay tahay askarigii haysanaa labadaasba marka dhaawac weynaa ku yaal dhaawacaas marka iyadoon la dhayin la noolayn ayada ammaanku si fiican loo helayo mana sugayso hana ku talagelin waa xaqiiqa taas haddii aan la helin siyaasad sarraysa kana sarraysa faldimiyeedka dhacaya haddii aan la helin siyaasadaasu ka soo go'day shakhsi aqoonteeda leh islamarkaasina leh shakhsi aqoonteeda iyo waayo-arnimadeeda shaqa leh labo waa in la helaa bulsho la shaqaysa bulshadaas la shaqaynteeduna waxay imaan kartaa bulshadaas lafteedu bulshada kaal ila shaqeeya kuma shaqaynayso waa inaad la timaada siyaasadda lafteedii ayaa qeexaysa inay aadu la timaado bulshadu waxay kugu aamini karto kugula shaqayn karto waa inaad la timaado ay lafteeda marka intaasu markay iskaashato askari shaqadii yaqaana bulshada u shaqaynaya asiga laftiisu marka askari ku leeyahay askariga waxaa laga rabaa inuu saddex shay asooltiisu uu hugaya askarigaas waa inuu uu ahaadaa shakhsi caafimaad qaba kow horta waa inuu ahaadaa shakhsi ka caafimaad qaba caafimaad marka ku leeyahay mentally iyo jir ahaan waa inuu caafimaad qaba labo waa inuu ahaadaa askari caqiida ahaan loo dhiso oo wadaniddu ay ka buuxdo marka caafimaad qabo waa inuu haddana wadanid leeyahay wadanidda oo si wadanida loo dhiso oo diin ahaan u dhisanya oo wadanid iyo diintu waa iskaabiyaan wadanidda lagu sheego waxaa waaye dalkaada dadkaada diintaada inaad jeclaato waa marka waa inuu askarigaasi caafimaad qaba wadaniddiisu ay dhammaystiran tahay ama caqiid ahaan ninkaas loo dhisay markaad labadaas samayso tasaddexaad xuquuqdii asiga u lahaa in aad soo dhammaystirto xuquuqdii asiga u lahaa aad soo dhammaystirto saddexaas markii askarigii aad ka soo dhammaystirto xuquuqdiisii aad u soo dhammaystirto asiga caqiid ahaan u dhisto caafimaad uu qabo caafimaadka uu qabo maskaxda keliya maaha waa inuu xataa u dhisan yahay shakhsi ka fog dembiyada ka fog oo dembi ka fog inuu soo ahaada marka shakhsi saasa markaad aad hayso askariga oo intaas oo asigoo xambaarsan yahay waxaad helaysaa markaas inuu askarigaasu noqdo askarigii aad u baahnayd inuu noqdo 500 askariyaa heli karaa 500 askari qiime ima samaynayso amniga inay ku dheelaan mooyaane waxaan ka rabaa aniga 50 qof oo 50kaas oo sifaha aan raba leh 500 askari waxaa igaga fiican 500 oo qof oo ah 500 oo ciidan waxaa igaga fiican 50 nin ayaa igaga fiican 50kaas waxay qaban karaan 500 waxay ku dheelaan sixir lahayn 500 nin oo aniga tiro badan ciidan tiro badan waxba ima samaynayaan barkee nabadgelyadayba khatar gelinayaan kuwaas nabadgelyada ayayba khatar gelinayaan waxayse markaas iga fogeynayaan shacbiga askariga caawa waddada xun ama ficilka xun ama bajaaj saxbadda ku dhuftaa sidee biri uu kugu soo heli kara garab kaaga sii kara ninka muwaadinka Soomaalida shalay walaagis aad dishay ama asal adigu aad dhaawacday sidee kula shaqayn karaa ma kula shaqayn karo sidee eheladiisu ay ku jeclaan karaan ma ku jeclaanayaan marka waa in la helaa askari ka fayow waxaas dhan oo aan u baahanahay inuu ahaado askariga aan samaystay ee saddexaas arrimood xambaarsan kow xambaarsan nin wadaniyadda caafimaad qaba iyo kow shaygu kow laga fiirinayo caafimaadkiisa mentally iyo jir ahaan physically iyo mentally muu caafimaad qaba markaan taas soo diyaariyo qodobka labaadna waxaan u baahanahay inuu yahay nin caqiid ahaan loo diyaariyo wadaniyaddii iyo diin ahaan loo soo dhisay marka arrin si lagu soo dhisaa sidaa ah nidaamka anaa saddexaad waxay tahay
in xaquuqda uu lahaa adiga uu kaa helo oo ninkaan askariga ahay hooy uu leeyahay walaal uu leeyahay xaas uu leeyahay muu leeyahay uuna shaqada ku walaacin ku qanacsan yahay marka mushaarkiisu uu aada mushaar ku filan waa inuu aada waana damca gelaynin hantida shacabka sida damca gelin marka saddexdaas marka askariga aan soo helo askariga aan u talagalay oon u baahna oon soo samaysta waane shaqada aan taas waa kan u baahnaanay ani kan la adeegsanayo kan la gadanayo kan caafimaad qabin mentally aan u diyaarsanayn qaadka cunayo tirada badan oo aanan waxba wax deeqay jirin anigu askariga ma noqonayo kasani waxbay mataraan kaas dalkana badbaadinayo kii askari ka dhigtaan amnigu khatar ku yahay kii dalacsiiya ama wadana khatar waa amnigu waxaa kaloo hadda meesha ku jirta lafteed fiir taas markii aan helo askarigaa soo helo askariga waxa uu u baahan yahay siyaasaddii amnigayd oo loo diyaariyo oo diyaarsan siyaasaddaas oo marwalba ah siyaasad ilaashan isla markaasna laga fikiray aad iyo aadna u ilaashan ayda lafteeda siyaasaddaasoo ka sarraysa dembiyada dhaca fal dembiyeedka dhaca mid ka sarraysa waa inaa siyaasaddaas la imaada siyaasaddaas marka lafteedu waa inaa hata mid aniga iyo shacabka isku kay xiraysa isku soo dhaweynaysa marka taasoo diyaarsan buuga anigu aan qoray marka iyada marka waxaa jirta haddii aan lagu takrafalin nidaamka saasoo kale macnaha saas aan loo wada helin oo saddexdaas saas u wada shaqeeha aan leelin waxaa waa nabadgelyo ma imaanayso beenaa la isu sheegay beenaa la isu sheegay waxaanay noqonaysaa marka dhibaatada inay weligeed ay jirto marka ilahay waxaan ka baryaynaa in madaxdeena iyo dadkeena iyo dowladdeena iyo dadkeena iyo ina ilaahay waafajiyo waxaa wanaaga ah inaan nabaddii aan la wada leeyahay dadkuna loo wada baahan yahay in laga wada shaqeeyo isla markaasna ay noqoto wax in la wada dhowrsado oo la wada ilaasho loo wada baahan waa barnaamijkeena ammaankii wacyigelinta nabadda oo caawa kusoo qaadanay runtii barnaamijka ammaankii nabadda iyo caasimadda aan kusoo qaadanay waxaan leeyahay meelo baa joogtaa nabadii barwaaqo shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay sanadkiisa ilahay waxaan ka baryaynaa nabadii barwaaqo ilahay waxaan ka baryaynaa ummaddeena ilahay waafajiyo nabadda iyo barwaaqada ilahay waafajiyo inaan fahamsiino dalka ugu quruxda badan ugu nimcada badan ugu barwaaqada badan ugu cimilada fiican in ilaahayna siiyey laakiin ilahay waxaan ka baryay dowladda ilaahayna siiyey dhalinyaro maanta halgamayso dadaalayso ordayso boodayso heykalka dowladna soo celisay maxaa la yirahdaa isha maxaan ku rahdaa waxaa la dhihi jira qabka soomaalinimo soo celisay in aan maanta aanu gaarno hamiga ahaa ama riyaday damacsiiyaan waddankan batroolkiisa iyo horumarkiisa lasoo saaro waxaan u dhimana batroolka waa waxaan u dhimana horumarka waa waxaan u dhimana dowlad aan yeelan qabla waa waxa siyaasadda weerarka kula soo qaado waxay tahay dhalinyarada wanaagsan ee maanta kacday ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada maxay dadkaan nool u yimaadaan dad la gada karo oo daciifa joog jiray aw kuwii saasaya oo caamilka noo aan ku shaqaysan jirna may noo yimaadaan halkaas oo meesha lagala dagaalamaan garo muwaadin waddani ila garo halka lagaa dilaa waa halkaas waanu axmed diidacada aadanahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu barnaamijyaha isku dubridaha